كو سؤاشا lagu soo celiyay waa raaligelin laga bixiyay waxyaalaha halka dhacay horta ma hasantiin laakiin anu idinka xawada ma haysto anu reer shacabka reer Garowe iyo reer Nugaal midna xaw ma haysto ma imaada caawa halka hadii wax jiri lahayn loo taakuniyo Samaada arinta Qadar iyo Turki Qadar ku bilaabo Qadar waxay keentay wadanka boqol goor baan la weydiiyay gobolada qaar baa gelisan baa lacagta horta Qadar waxay keentay oo ana agsaxay ana wasaxay 200 milyan baa 200 milyan 220 milyan waxa infrastructure waxyaalaha kaabayaasha wadooyin baahay iyo inta kale oo wasaarado ay kamid tahay wasaaradda qorsheynta ay kamid tahay xarun weyn oo xarunta xisbiga ahaan jirtay federaalka oo ra'iisul wasaaraha loo dhisay arrimaha noocaas labada dawlad goboleedka gobolka Banaadir ku xiga ayaa lacagtii la geliyay tii wadooyinka sababta loo geliyay markaan sharax sababta loo geliyay waxa ahayd labada dawlad goboleed ma laha dekado iyo airport ay ka dhaxlaan sida Puntland ama Soomaaliya ama Jubbaland oo kale ay ka dhaxlaan dawladda hore ee Soomaaliya dekad Boosaaso Berbera Kismaayo ma laha airport caalami ah ma laha waa laba gobol oo wax soo saar badan leh labada shabeelle gaar ahaan wax soo saarkooda iyo markas wax ku dhoofinaya waxa dekad ugu dhow dekada magaalada Muqdisho hadii khudaar laga soo qaado Afgooye ama dhinacan Jawhari laga keeno wadada hadda aragteen cidii aragtay baa aragtay wadada mooska waa aragteen suu calaamadaha iyo nabarada ku yaal xal ma keeni karo reer Puntland waxa loo baahay markay inay dib u fiiriyaan maxaa Puntland marka la yiraahdo awood qaybsiga ama kheyraad qaybsiga Puntland sheerka hadda hesho maxaa sabab ah horta number 2 way wadanka marka Soomaaliya laga yimaado goboladan ka hadlay waa number 2 mudana waahid sala socotaan 2014kii wadanka waxa laga qabtay qiyaas tirakoob PES waxa loo yaqaan 2014kii wasaaradda qorsheynta qabatay wasiir waxa ka Said Abdullaahi Dani waxa kaliya qabtay way soo wada Said Abdullaahi Dani ayaa wasiirka qorsheynta Soomaaliya 2014kii isaga ayaana ku saxeexan maanta waad ka heli kartaa wasaaradda qorsheynta isaga ku saxeexan oo saxeexay qoondada maanta Puntland ka caawanayso iyo waxay tabanayso nasiib wanaag waa jooga saasha boqol goor ma cusub in la weydiiyo saan sheegay wadada xarfo iyo jalam waatii la yiraahdo waa soo dhamaatay mashruucaas EU aha Jarmalka lacagta laha EU da loo dhiibay EU da u dhiibtay hada UNOPS na contract bixis October 4 2017 ma soo saxay soo celintiis Germany qaybta kale ee Hobyo gaalkacayo iyo dhulka kala dayactirka African Development Bank bangiga la yiraahdo iyo midowga Europe ayaa headquarter level Abidjan iyo Brussels isku haysta fulinta mashaariicda Afrika oo dhan marka mashaariicdaas qaybtaas taas waxa dhamaantii isla fahmayaan marka waxa naga Soomaaliya shaqo kula ma marka taana taa qaado gabadha oo ma naqaya nabad nololaadan ma naqaya taageerayaasha waa baan caaw dhowr qof oo maaragtay ku tuuro laakiin ma santiin ninkii ugu dambeeyay hadlay wuxuu 5 sano ku shaqeynaysay baalkii oo ku sheegay 2017 markaan ay baarlamaanka intay waxaan geeyay sharciga statistikada in lagu noqdo October 2017 dhowr badan oo jooga golaha wasiirada ka ansixin in la bedelo sharciga waxaan lagu sameeyay baarlamaanku muddo ku jiray waa la isku qabsaday gobolada Puntland baan galmudug baan la tagnay mar walba si loo soo haystay baarlamaankii oo soo ansixiyay aqalka sare waa ansixiyay 2020 February madaxweynuhu saxay horta kama fariisan sharci sida lagu sameeyay muddo qaadata hadda madax banaay hadda waxaan bilownay censuska saxda in la sameeyo waxaan dhan tirtiri lahaa oo numberka saxda ah ee gobolka ku nool iyo gobolada wadanka lagu soo saar lahaa marka taana soo la soco waxa ay weydiisay aftax ku jirtay wadada Ceel Daahir Cergaabo sax horta wadada Ceel Daahir Cergaabo dawladda federaalka contribution ka geysatay contribution ka geysana laakiin Puntland baan soo maray markii Cabdullaahi gaas joogay bay ahayd aniga kula hadlaya la xiriir gudiga gacanta ku haya wadada gudiga waxay ugu yiraahdeen inuu waa sax oo baahanahay hay waxaan ku yeedhin qaybtaas jirta wasiirka hore maaliyadda Caarshe waqti Cabdullaahi gaas ayaa la xiriirnay Puntland baa loo sameeyay contribution-kii way heshay qayb kamid qaybtii kalena iyada pipeline ku jirta doorasho laga soo socota
warwarta waa geynay waxaan dawladda federaalka intaan soo istaagin muu sheegan kar mas'uuliyadna saaran way kuma faani karo laakiin qaybteeda waa geynay wayna ogyihiin guddiga waana weydiin kartaa wasaaradda maaliyadda puntland waa ka heli kartaa sidaas si lamid ah waxyaalaha aanu deeqaha wadamada ka keeno puntland baan u wada keenaa xaq bay leeyihiin gobolka sanaag baan hadda ka yimi ama highland waxyaalo fara badan waanu ognahay annagoo soo gudbinay in laga fuliyo puntland oo dhan ayaanu ognahay si loo fulin lahaa loo fulin waxa way meesha inaan ilaashano muhiim weyn deegaanka la adkeeyo gobolka haddii amni yahay oo fiican yahay oo dadku si cadaalad ku wada joogaan oo aan loo isticmaalin state-kiin dhaqaale lagu warsado dadka lagu caajibleeyo Soomaaliya meel fiican bay gaaraysaa fadlan sheerkiina soo raadsad meel kasta u gal meesha waxa ka maqan buu raadsad ciidan ha noqoto dhaqaale kale ha noqoto maalgashi ha noqoto raadiya personally xilliban baan hadda ahay xubintii beesheeda inaan ku soo noqdaan rabaa laakiin sida ka socota waddanka meelo badan puntland kariima meelo badan ka socota gacmo-gacmeyn badan baa jirta gacmo-gacmeyntaa jirta dani walba waa tabartiisa nin iska daaya nin ka dagaalama iyo nin la iska dardaro marka horta odayaasha taa laftigeedana inaan isku soo degdegin si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta